شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام في الكون ينحسر الظلام ونفوسنا تهفو له وتهيم فيه فلا تلام أيامه قدسية غيم. انتبه يا عباد الله، انتبه يا عباد الله، انتبه. الاستعداد لرمضان بشا فرصة قالقة قيمها بدن sidii aynu ugu diyaar garoobi lahayna ramadaan. waxaynu ogsoonahay tusaalayaasha adduunyada markaynu soo qaadanno dadka ganacsiga ka shaqeeya marka la yidhaahdo halkaa carwaa ka jirta ama alaab jaban baa lagu soo bandhigaya oo aan sanadkoo dhan ku soo maraynin, nin waliba wuxuu u diyaar garoobaa siduu alaabtaa jaban u soo iibsan lahaa talagalna uu sameeyaa, hadday waddanka dhexdiisa tahay iyo haddii ay meel kale tahayba. maruu fiirsa raadsado, maruu lacagtii uu ku soo iibsan lahaa baadi doono, maruu wakhtiga waraysto, wax badan buu isku hagaajistaa, weliba wuu ka sii horreeyaa. taasi waxay sheegaysaa ku dadaalidda adduunyada iyo qofkaasi fursadda alaabtu jaban tahay siduu uga faa'iidaysan lahaa. midhkaynu ka warramaynaa waa midh caynkaas oo kale ahoo fursaddani waa fursad qaaliya oo aad u qiimo badan oo cimriga qofku si dhaqsaa hore ugu kacayo, barakoobayo. markaa siday dadku ugu kala diyaar garoobaan ayay uga kala faa'iidaysi badanayaan bishaa. انتبه يا عباد الله، انتبه يا عباد الله، انتبه. deeq ballaaran ayaa noo soo socota. ilaahay ha noo aqbalo subxaanahu wa tacaala, kuwa la aqbalayna ilaahay ha naga dhigo. wax weyn ayaa noo soo socday, waxa weyn allah na siiyo. waxaas weyn ilaahay ha na siiyo, maxaa yeelay imaam axmed iyo ibnu maaja labadooduba waxay nabiga ka wariyeen sala allahu wasalam wabaaraka calayhi, nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi inuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala lilaahi cutaqaa cinda kulli fidrin wadalika kula leyla. ilaahay subxaanahu wa tacaala habeen kasta ee ramadaan wuxuu sameeyaa cutaqaa min annaar, daduu ilaahay naarta ka xureeya. wadalika kula leyla, waana habeen kastuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam oo inta ramadaan uu socdo. 29 habeen ama 30 habeen ee ramadaan uu soconayo, habeen walba deeqdaasaa socotuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam. allah nagu daro deeqdaas, allah nagu daro cutaqaa min annaar. deeqdaas markaa cidda helaysa ee ka faa'iidaysanaysa waa cidda markaa tanaasulka iyo cafwiga samaysay oo qalbigeeda waasac ka dhigtay, oo caloosheeda qalbigeeda wasakhta iyo daxasha iyo waxa qarmuun oo dhan ka saafi garaysay. safaa'u lquluub, qofkii ilaahay uu ka helo ayaa waxaa saafiga iyo deeqdaa weyn ku guulaysanaya oo ilaahay uu siinaya subxaanahu wa tacaala. انتبه يا عباد الله، انتبه يا عباد الله، انتبه. waxaan ognahay qofku marka uu doonayo inuu safar galo uu isdiyaarinaya. marka inaan isdiyaarinno oo maskaxdeenna aan ugu sheekayno bishii ramadaan baa soo socota. marka bishii ramadaan waxaan doonayaa saana u dhaqmi jirin inaan u dhaqmo awal hore ayaan doonayaa, waxaana samayn jirin oo badan inaan sameeyo ayaan doonayaa. marka inuu qofku marka awraaqdiisa kala hagaajiyo, shaqadiisa uu nidaamiyo, wakhtigiisa uu nidaamiyo ayaa la doonayaa. waxaa la rabaa marka isaga oo xataa schedule-kiisii iyo barnaamijkiisii diyaariyey inay ramadaanku soo galo ayaa la doonayaa. isaga oo diyaariyey oo maalinkii soonkeeda isu diyaariyey xisbkii ama juskii qur-aanka uu akhrisan lahaa isu diyaariyey taraawiixda iyo muxuu ka qayb qaadashadeeda insha allahu tacaala iyo salaadaha isu diyaariyey muxuu ahaa tafakurka iyo ilaahay subxaana wa tacaala ku fikirkiisa iyo cadamadiisa isu diyaariyey inuu saa isugu diyaariyo oo uu si fiican u nidaamiyo wakhtigiisa isagoo saa isu diyaariyey inuu ramadaanku inoo soo galo ayaan doonaynaa. waa qodobka labaad ee muhimka waa sidaas weeyaan. marka isdiyaarin uu qofku isdiyaarinayo ayaa iyaduna lagama maarmaan ah. maxaa jira walaalayaalow, sida qur-aanka allah uu ku tilmaamay subxaana wa tacaala waa ayaaman macduudaat, waa maalmo kooban weeyaan. marka fiiri qofka bini aadamka ahu marka uu joogo waqti intuu hadduu badeeco keeno uu ogyahay badeecada in durba laga dhammaysanayo, inuu qiimo badan uu ku helayo, waxaad ogtahay suu u dadaalayo, waxaad ogtahay suu waqti badan u gelinayo,
waxaad ogtahay si u dhaqsanayo sidaa darteed hadday bishanu tahay bishaa khayrka ah maalmana joogaysa oo ay tahay 30 maalmood ama 20 maalmood ay tahay waxaa lagaba maarmaan marka diyaargarow dheeraad ah oo aad u muhiim ah iyo inaad waqtigaana u nidaamino si aan uga faa'iideysano si ayna laxdo insha Allah taala ama daqiiqad ama saacad ama maalin ama habeen inaga khasaaray uunan u imanin waqti walba aan ka faa'iideysan inaan isu diyaarino ayaan doonaynaa marka arrinta is diyaarintuna waa lagama maarmaan weeyaan oo walaalayaalow aniga idinkaba inaan is diyaarino iyo isu dardaarmayno انتبه يا عباد الله انتبه يا عباد الله انتبه فرصة إلهي سبحانه وتعالى نحريستي سنة إن بالرمضان إلهي سبحانه وتعالى كهليش سيو ضد فربضان بواحد جري يقول إن شاء الله رمضان كالضنبان في ديادة بحين دونا كفارة بحين دونا سومي دونا قرآن كي أنا خاتمي بيش اللي صادف في رمضان كي اللي صادف كان كلام خاتمي دونا رمضان كالضنبان وقت أقام دونا فسعوه لي دونا يقول سيدا لها إلهي سبحانه وتعالى أنا للسجن وقتي أجل بيلهايين مضر رب العالمين الدياري أنا دم قدعين وقتي لو قلت لك جلي حلي لو قلت لك جلي واي كل انتين وحلو بها قفك مؤمنك وح الله وحي أتكجابي سبيش اللي صار في رمضان هاي رمضان أتكسون مري إن السنة كان قفك وعذر عبادة وموجيو قرآن كإله هذا هالمر ختيم جرتين الله يسدح خدمته أي جارته هدي أفرين جرت أفر يشان إن عددك أنت أو كسيبته هدي نوعا ما تراويح هبين طبعا كهرون عمير جرتي طبعا كضم طبعا كدحات كمجنان جرتي صدا كهبين بإله سبحانه وتعالى رب العالمين وعبادة هذا ومرحبا يسينا يا الباب هذا كوفرنا إمو الله سبحانه وتعالى جاني اسكلو مركا إنا سينيا فرصة وفرصة يدو غالية ما صومرته dadkii iyagoo wadada maraya u muuqday inay ahaayeen ama noocan ma la dhihi karo waa iimaan meel maraya oo qaarkood la yiri iyagoo nool baa janno loogu bishaareeyay ba sanadkoo dhan waxay u taagnaayeen un kaliya yaa rabbi kii horana aqbal yaa rabbi ka kalena gaarsi waa jaanis marka adoo meelahan jooga ilaahay subhanahu wa ta'ala inna waafajiyay waxay ka mid tahay انتبه يا عباد الله انتبه يا عباد الله انتبه محامده الأنام فاقت محامده الأنام وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام في الكون ينحسر